السلام عليكم. sidee leeyahay saaxiibayaal waan salaamay magacaygu waa Cumar Cabdirasaaq meesha aad ila socotaan waa Ozi Production maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago arrin yar oo Facebook dhanka Facebook la xiriira oo la yiraahdo two factor authentication marka two factor authentication wuxuu yahay maxaa loo isticmaalaa طبعا two factor authentication waxa weeyaan markasta oo aad taleefankaaga ama laptopkaaga aad isticmaashid Facebook inta badan ka gasho ku aan ahayd aad ka gasho wuxuu ku weydiinayaa inaad adiga tahay koodna uu kugu soo dirayaa taleefankaad ku save gareyso taasoo adkeynaysa markaa security-ga Facebook-gaaga ama si aan dhib kale u dhicin ama taleefan kale ama cid kale ayna u gelin waxaa dhici karta Facebook-gaaga ama password-kaaga si loo access gareeyo kadib taleefan kale ama computer kale laga galo taasi markaa ka hortagaysa sida loo isticmaalaa aynu gallo waxa weeyaan marka hore Facebook-gayna gelinaa username-kaaga iyo waxaad ku qoraysaa password-kaaga wakaas kadibna waxa weeyaan two factor authentication waxaad si aad u tagto waxaad tagaysaa calaamadda yar baad ku dhufanaysaa login markaad ka baxayso haddaad isticmaalayso mobile iyo haddaad computer isticmaasho aniga computer ma isticmaalaya laakiin waa isku mid kadib waxaad oranaysaa settings baad tagaysaa settings markaad tagto kadib waxaad tagaysaa security and login markaad tagto xaggaas two factor authentication baa ku qoran saad arkaysaa two factor authentication click siinaysaa ama ku dhufanaysaa get started baad oranaysaa marka waa ka choose a security method dooro qaabka security uu ku leeyahay anytime you log in from an unusual device or location we will ask for extra security. Choose the method that works best for you. laba method baa markaa la isticmaalaya halkan waxa weeyaan mar taleefankaaga ayaa direct message lagugu soo diraya mar kasta oo device aanan la garanaynin ama meeshaad ka geli jirtay aan ahayn inaad ka gasho taleefankaaga direct lagugu soo diraya kan kalena waa application marka set up an app like Google Authenticator or Duo Mobile labada application mid baad set up gareysanaysaa code baa markaa lagu soo diraya login code baa lagu soo diraya kaas uu generate gareynaya inagu markaa waxaynu isticmaalinaa kan text message oo code-ka lagu soo diraya directly taleefankaaga haddaad markaa taleefanka kugu samaysan aad isticmaalayso next baad odhanaysaa haddii aan isticmaalayninna waxaad samaynaysaa use a different number baa odhan markaa lambaraantan xagan kugu qoran hadduuna midna ahayn ayaa waxaad ku dhufanaysaa add a new number baa odhanaysaa marka add a new phone number kadib baad halkaa gelaysaa laakiin anigu imika taleefankayga raba inaan ku samaysto markaa next baa odhanaya wax kale ma odhanayo kadib wuxuu ka odhanayaa enter the 4-digit code we sent it to numberkaaga taleefankayga markaa jeegareynayaa inuu igu soo dhacayo in kale dabcan saad arkaysaan already uba soo galayba wakaas numberkaan gelaya numberkaas geli buu ku leeyahay si uu kugu socdo waxaan usoo noqono dhanka computerka markaa waynu gelinaynaa wuxuu ahaa 177166 then next baa odhanaysaa next markaad tiraahdo two factor authentication is on will now ask for a login code anytime you log in on a phone or a computer we don't recognize taleefan kasta iyo computer kasta oon la garayn ama aad save garaysanin markaad kasoo gasho waanu ku weydiinaynaa ayuu leeyahay طبعا taasoo ah wax wanaagsan okay markaa isagoo taleefanku saa igu soo dhacay bal aan arko haddana aan isku dayno inaan browser kale ka galo noo save garaysanin dabcan Chrome ku save garaysan yahay aniga markaa waa inaan Explorer ka galo internet explorer-ka aan ka galo ama Microsoft Edge-ka u taqaanaba kadib xaggan baa facebook.com ku qoraynaa kadib markaan ku qorno login buu noo soo qori doonaa login markuu noo soo qoro username-kaaga iyo waxaad gelaysaa password-kaaga login baa odhanaysa kadib waa kan wuxuu soo qorayaa two factor authentication uu sameynaya markaa you have asked us to require wakaas taleefankayga saad arkaysaa imika uu soo dhacay xaggan wuxuu soo qorayaa markaa you have asked to require a 6-digit login code
when anyone tries to access your account from an undefined browser. When you receive 6-digit code, enter it to continue. kadibna markaad koodhka uu kuu soo diray ayaad xagga ku qoraysaa. Aniga kan uu ii soo diray saad arkaysaan kana ugu dambeeyay kan uu ii soo diray marka wuxuu yidhi 9979773 continue. marka xaggana wuxuu kusoo qorayaa miyaan save garayaa si aan hadhow mar kale aad login garaynaysa aanan ku weydiinin. haddaad markaa uu kaaga yahay mobilekaaga ama uu yahay computerkaaga yes baa odhanaysa. hadduuna ahayn ma save garanaysa. marka imika don't save baa idhi. facebookayga wakaas halkaa baan ka galay. kayga kala furnaaba xaggan igu soo diraya unusual. okay xataa marka aad gasho authentication qofka xataa hadduu kaa khaldo oo imika waan ku jiraa saad arkaysaan facebookayga xataa hadduu authenticationkaas qofkaas uu kaa qisho maaragtay xaggan uu kugu soo qoraya oo notification buu kusoo dhigaya ku odhanaya you don't usually log in from this browser. inta badan kama gashid browserkan so we want to make sure it was you. waxaan markaan xaqiijinaynaa inay adiga tahay. locationkii buu sheegaya wuxuu leeyahay near Jigjiga Ethiopia. طبعا Jigjigan joogaa. h ku sheegaya waxaan ka galay uu sheegaya marka waxa laga galay marka wuxuu ku leeyahay h on Windows 7. that was me hadaad tiraahdo okay weeyaan that wasn't me hadaad tiraahdo waxaa dhacaysa in to keep your account secure you have logged you out of that browser. No will help you to change your password. marka wuxuu ku leeyahay bas kaa wuu ka saaraya dabcan markaa kan kale wuu ka saaraya markaan aragno miyuu ka saaray redirect and runnable dabcan wuu ka saaray this page wuu diidaya markaysa qofku wuu diidaya adaa ka saari karaya marka passwordka iska bedel buu leeyahay kanna wuu ka saaray saad arkaysaan. so cashirkeenu maanta intaa buu noogu eegaya two factor authentication sida loo isticmaalo waa taqaanaan. waa Cumar Saki oo idinka soo salaamaya Ozi Production. salaam.